بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعند وضيال كسو دوادا وريسيغا تضباط كود وبرتين تي في يونيفرسال انت بدن برنامجka wareysiga toddobaadka waxaad kala socotaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya maanta waa uu ka bedelan yahay waxaan idinkaga soo gudbinaynaa magaalada Baghdad ee dalka Iraq halkan hadda aan ku sugannahay waa safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay dalka Iraq gaar ahaan magaalada Baghdad waxaana ila fadhisaa Marwo Khadijo Maxamed Al-Makhzumi oo ah safiiradda Soomaalida ee dalkan u fadhida waa gabar daayiro dhalinyaro Soomaaliyeed inta badan barnaamijkeena waxaanu kaga hadli doonaa xaaladda safaaradda iyo sida iminka ay ku howlgasho maadaama magaalada Baghdad aan ognahay xaaladaha amniga ka jira waxaan jeclaan lahaa safir marka hore kusoo dhawow TV-ga Universal ma saddex xamdi marka xiga waxaan jeclaan lahaa Marwo Khadijo waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed oo TV-ga ku xiran ay ku arkaan laga yaabo inay tahay markii ugu horeysay inay yiraahdaan Khadijo horta safiirad ka hor maxay ahayd qof caynkee ah waxaan jeclaan lahaa taariikhdaada bal inay dadku nala socdaan ما صدق حمدي أنا خديجة محمد أحمد المخزومي لها وحكون الله المجال سمت مقدشة وحكوسو والله ضلك مصر ودك سويس كوسو لمي كدبنا وحأقول بي ضلك إنجليزي أو حبر شيء ده حاجة كوسي أمستري وحنا صوبرت بزنس مانجمنت حلقة سنة هوش كسي وطو بزنس كي جات كسكوتو أو حيوسو زائدي إن اليوسو iyo caawitaan dhinaca jaaliyadda Soomaaliya liaison office inaan garab ka siiyo oo waxay temporary oo kumir gaar ahaan oo ku caawiyo jaaliyadda Soomaaliya London oo ilaa aan xariisto oo director-ka noo ahay Cabdiqaadir Aadan Cali Dhuur garab ku siin jiray muddo kadib wuxuu igu dhiirigeliyay markaas kadib inaan ظروفها Soomaaliya iyo dhibaatada Soomaaliya markaas fiican isoo aftiimay xaaladaha dhibaatada ummadda Soomaalida ku nool yihiin qurbada maalin walba arinta ka sii dambayso oo u sii danqan jiray waa ku sii dhiiraday inaan sii ogaado waxyaalo badan oo ku jira Soomaaliya ka jira dhibaatada Soomaalida haasata gaar ahaan oo qurbi joogtada iyo gaar ahaan waxaa sii leeyahay hooyooyinka Europe ka jooga arintaas ku sii socday kadib waxa ku sii gaaray inaan ka gudbo dhinac liaison office Ingiriiska oo dalkii soo booqdo oo arko xaaladihii nololeeda ka jirtay nolosha booqashadeeda koowaad wuxuu ahaa oo Soomaaliya aaday Soomaaliya markii koowaad aaday 2011 Soomaaliya aaday waxa arintaas ka dhacay markaas wasaaradda arrimaha dibadda qarax aad u xoog weyn oo ku dhamaaday ardaydii wasaaradda arrimaha dibadda xilligaas lama kulmay aan joogay ardaydii Turkiga ku socday wasaaradda arrimaha dibadda joogay waqtigaas qaraxa la kulmay dad aan meeshaas la joognay waqtigaas aan ku baaba'ay aad arintaas waqti ii danqatay وين وسي ديرجلسي ناس كسي ودا ما شاء الله كدب waxa lii magacaabay dhinaca jaamacadda Carabta ina wasiirka arrimaha dibadda inaan ku caawiyo arrimaha dhinaca jaamacadda Carabta halkaas waxa sii jooga 2 sano bar muddo kala shaqeynaa jaamacadda Carabta kadib waxa lii magacaabay 2 sano bar ama jaamacadda Carabta jooga kadib waxa lii magacaabay safaaradda Malaysia consular اللي هو مقعوي طلقة سعادي بسفارة حقاس كسو خلقري مركا حقاس كسو شخي مدد كابا أو حاعد صدي إنا عرق ليكي صوبت عرق وطلبنا محو هاي وحكار هانا نجري أسبابت الصومالي وطلبنا وقتها جامعة عرب تجوغي هادلك عراق آد ودنينا صومالي وحرير كودني آد وكل فاجرين Soomaaliya ماشي كل حرير هاي أردت حوق صاري مركز حلو مقعاوي خلاص حالي مقعاوي 8 كوردينيتر هنا معاونة هنا قعاوي معاونة موانا كينا دلك عراق نكدب نوحلو مقعاوي وكيلك إنك سفارتها وكيل أهان نوسي جوتو وكيل مدة كردك
laakiin duruufo iyo arrimaha hadday jirto iyo xaaladaha hadday jirto inuu imaado oo xaaladihii La socdo. sameeyo la socdo uu sameyn kara laakiin degnaansho ahaan ma loo ogolo holaasaa ka shaqeeyey mashruucyaal badanaa ka dhaliyay meesha kadib waxaa sii aaday waxaa laigu magacaabay mashruucyaal anigoo keenay dalka Soomaaliya dalka Soomaaliya waxaa laga magacaabay kadib siyaahayaha safaaradda markaasaa howlgalay inaan safaaraddii furitaankeedii ka shaqeeyo keligeyga markaas imaaday lii magacaabay maantana sidaa u joogta alxamdulilah waqti 3 sana jooga ciraaq waxay ugu qaadatay waqti aad u dhib badan xaaladda ciraaq ay ku sugan tahay oo aad u dhib badan tahay waa soo maray waxaan u adkeysanaa arrimahaas xaaladahaas oo dalka ciraaq ku jirtay ayagoo muujinaya Soomaaliya inay rabaan inay wax u qabtaan ayagan ee duruufo gaar ahaan ay haysato taasna aada u daneynaya dhinaca siyaasadda iyo xaaladahay ku jiraan dalka ciraaq oo waxyaalo badan ka bartay oona dalkeygii Soomaaliya maanta wax qabasho ahaan maanta uga faa'iideysanaya inaan wax u qabto haddayna kuusoo kao waqtiga ugu koowaad oo dalkan imaadan wuxuu ahaa delegation wafdi oo waqtigii madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed la joogay dalkaansi u imaado wafdi ahaan oo arrimahaas kala hadlaynay Soomaaliya ciraaq sidii safaarad loo furnaa sidii howsha loogu qaban lahaa kadib madaxweynaha 2012gii wuxuu imaaday shirkii carabta lagu sameynaya jaamacadda carabta dalka ciraaq hogaaminayay shirkaas delegationka imaanaya wafdiga imaanaya inaa u qaabilsanaayo oo lii xilsaaro wasiirka arrimaha dibadda in arrintaas aniga u xilsaarnaado arrintaasna waqtigaasa kasoo shaqeynayo maantana alxamdulilah safaarada meeshaan ka furan ee muuqato ummadda Soomaaliyeed u muuqato maanta xaaladaha duruufta ciraaq ku jirta laakiin aada ugu faraxsanaa Soomaaliya maanta safaarad dalka ciraaq inaa ka muuqato waa gartay safiir safaaraddan hadda adiga aad safiirkeeda tahay waxay ku taallaa magaalada Baqdaad marka la fiiriyo xaaladda magaalada Baqdaad iyo xaaladda dalka Soomaaliya waa laba wadan oo isleedahay waa isku xaalad ay ku jiraan oo dagaallo ay ka socdaan iyo burbur 2015 ayaa si official ah safaaraddan xariga looga jaray ka hor waa ku shaqeynayseen markii lagu soo magacaabay muddo 10 sano ah qiyaastii oo safiirka adiga ka horeeya gaab aa jiray meeshaan way banaaneed maxaa isleedahay dib u howlgelinteeda dhibaatadaas intaasaan igu qaadatay intaasoo waqtigaan sameynayay ilaa waxaa laga yaaba markii lagu soo diray in qof un lasoo magacaabay aad ahayd laakiin waxba meesha iska kaaga soo horreeyay waa runtaadi wax iigu horreysay meeshaan horta haba yaraatay ma jirto keligeyga xag dalkan imaaday 2013kii bishii labaad si official dalkan usoo degay haba yaraatay wax qof iga horreeyay ama shaqo ahaan oo meelaha ka bilaaba anagoo garanayna meeshaan imaaday laakiin waxaa sameynaya waa ogaay experiencena waa u lahaa dalkan maadaama safaaradda Malaysia aa soo furay marka alxamdulilah waqti ay u qaadatay 3 sano inaan ka shaqeeyo dalkan safaaradda hal sano oo booska safaaradda u kadegleed inaan raadiyo iyo 1 sano qalabeynteed marka alxamdulilah 1 sano maantana waa degannahay aadaan ugu faraxsanahay maanta safaaraddaas waqti badan oo howsha anagoo ku jiray maantana ee dhashay miro dhibaatadaa soo marnay iyo xaaladaha soo marnay maanta alxamdulilah waa arrin lagu farxo inaan maanta dadaalkaa dadaalinay safaaradda maanta ka muuqato dalka marwa Khadiijo waxaad joogtay magaalada London waxaad ii sheegtay in Qaahiro markaad hore waxbarashadaada ay ahayd wadankii Soomaaliya in muddo ahaa moogtahay oo xilliyada noloshaada meelo kale aad kusoo qaadatay marka aad hadda damaacisay inaad safiir ka noqoto Baqdaad maxaa la isdhihi karaa maxay ku dooratay wadan shidaal loo dhaqaalaha ku tabaysay ilaa wadan burbur ka jiro oo xaalad adag ku jiro inaad adiga noloshaada horta marka horeba wax qalad ka soo risk usoo gasho maxaa la dhihi karaa waxaasa ku mudnaanta u siinaysay Baqdaad waa mahadsantahay xamdi horta arrintaas su-aasha su-aal muhiim ee waaye dalka ciraaq sidaa og tahay nolosha aada u dhib badan tahay dhibaato badan ka taagan oo riskiga nolosha soo qaadan laakiin hay maalin walba Soomaaliya dad badan baa dhiigood ku daato
oo naftooda maalin walba maalinba qof walba naftiisa u huro oo ku dhinto marka qof walba raadinayo dalkii shacbi caadi ku dhimanayo kaniga maanta xil weyn ay iga saaran iyo mas-uuliyada ay saaran inaad qayb ka qaadato maanta inaa oo Soomaaliya wax tarkeed iyo horumarka Soomaaliya inaa wax ka qaban karo marka riskigaas waxaa u fiirinayna waxaa waa dalka qaranka Soomaaliya maanta waa gartay maruu Khadiijo marka lagu arko muuqaal ahaan gabadha ayaraa tahay hooyana waa tahay dabcan xaasna waa tahay maxaa is leedahay diblomaasiyadda horta waxaas ayaa micno leedahay hadda aan ka faa'iido ka dhaxlay maxaase kugu dhiirigeliyay horta inaad siyaasad gasho xanuunka oo Soomaali ku galay dhinaca Soomaaliya inaan howl ka qabto duruufta maanta halkan ku joogan waxaa waaye dhibaatada Soomaaliya maanta ku arkay iyo xaaladii marayso intaas ay ugu dhiirigelisay inaan Soomaaliya xanuunkay leedahay dhinaca oo diblomaasinimadana waxaa igu dhiirigeliyay wuxuu ahaay aniga alxamdulillah horta waxaa kusoo tababartay waxaa isoo tababaray nin gaar ahaan safiirka alla ilaa u naxariisto safiirka ilaa u naxariisto Maxamed Cusmaan safiirkani intii ahaan jiray wuuna ahaay wasaaradda arrimaha dibadda chief protocol-ka aad experience oo garab xoog ii garab istaagay dhinaca diblomaasnimada marka faa'iido badan asaa ka faa'iidaystay alxamdulillah waan ku mahadcelinaa dhinacaas horta experience ku qaatay iyo xaaladihii iyo shaqayaasha kasoo shaqeeyay dhinaca jaamacadda carabta dhankaas aad ugu soo faa'iidaystay maanta aad waxaa u muujinaa waxaa safaaradda Soomaaliya diblomaasiyadda waxay ku xiranta waxaa waa looshii muujinaya dalka Soomaaliya iyo muuqaalka Soomaaliya maanta inaa adduunka ay arkaan Soomaaliya xaaladaha muuqaal ahaan u tahay dhalinyarta magaalada Baghdad waxaa ka socda shirkii baarlamaanada iskaashiga wadamada islaamka safaaraddu dee waa wakiilkii dowladda Soomaaliya halkan u joogay gudoomiyihii baarlamaanka jooga wafdi xildhibaano baarlamaanka ka qayb galaya shirkan muddada 4 cisho socdo waxaad ahaydeen xubno firfircoon adiga iyo howlwadeenadaada oo si weyn uga dhex muuqday xilligii uu shirka socday maxaa is leedahay horta shirkan waxaasay ka Soomaali ahaan laga faa'iiday maxaase laga hadlayay muhiimadda dadka shirka aan ka qayb galin ee sideenoo kale aan nala joogin aad dhiileed waxaasaa looga hadlayay waxaasaa laga dhaxli karaa waxaasu faa'iido iyo horumar oo dalkii Soomaaliya uu u leeyahay maadaama inta badan argagixisada isku si aan la dagaalankeeda ugu jirno dalalka horta maanta gudoomiyaha baarlamaanka imaaditaankiisa dalkan imaanayo horta aad ay muhiim u tahay shirka oo lagu sameynaa Ciraaq inay ka muuqato Soomaaliya aad ay muhiim u tahay waxyaalaha laga faa'iidaysto dadku badnaan imaadaan waxay ka mid yihiin gudoomiyaasha baarlamaanada oo dalalkood ayaga dhibaato maanta argagixisada ka dhibaato sheegto iyo dadkii daneynayo maanta walaalaha Ciraaq inaan gudoomiyaha garab istaago oo howlo badan la qabto maanta meeshaan ka muuqdo horta muhiim ka tahay ee tahay midda labaad faa'iidada leedahay waxaa waaye is aragtadaas iyo heshiiskii iyo waxyaalaha meeshaas ee Soomaali ee ka muuqan karto ee door weyn ka dhigi karto aad horta muhiim u tahay Soomaaliya meeshaas ay ka muuqato waxyaalaha daneyneed howlo badanna way jirtaa insha Allah oo gudoomiyaha ka shaqeynayay oo ku hool jira arrimahaas shirka maanta labadan cisho ka soo shirka waxaa kasoo qayb galay dowlado fara badan oo islaam ah inta badanna waxaad moodaa inay baahiyaha dadka ka qayb galaya isku dhadhow yihiin maadaama wadamada qaarkood burbur uu ka jiro sideenoo kaleeto ay dhibaato haysato oo la dagaalanka argagixisada la iska kaashanayo ay ugu weyneed arrimaha laga hadlayo luuqadii ingiliishka marka laga soo tago dee qof carabigana si fiican u yaqaanaata waan ku arkay maxaa is leedahay dadkii lala kulmay oo madaxda ahaa ee meeshan yimaaday waxaasaan aniga laftarkeyga intaan gudoomiyahaba la gaarin maadaama luuqadin ay kuu sahlan tahay oo isku af aad ku hadlaysan oo carabi looga hadlayo meesha waxaasaan kaga faa'iidaystay oo dalkii Soomaaliya maanta fursado qof hebel aan la kulmay maama gudoomiye hebel aan la kulmay waxaasaa baahiyoon hor dhigay waxaasaa dadka Soomaaliyeed aragti ay ka qabeen aan ka gaday horta waxyaalaha oo gudoomiyaasha dalka imaanaysa shaqo waxaa jira socday farsamo dhacay ka shaqeynaya guddiyaal usoo
ka horeeyay gudoomiyaha dalalkaasna aada Soomaali u danaynaayeen waqtiga hadda marxalada ku jirno shirarkaasna waxyaalo badan laga faa'iideysan karo anigana faa'iido ii tahay waxaa waaye markii kuwad waa oo shir oo barlamaan ku dhex jiray shirkaas ka sameeyay markana maanta muhiim ay tahay waxyaalo badan ka faa'iideysta ogeynaa maanta ogaada markaas shaqo laga howlgalo meeshana ay kugu cusubto deegaanka kugu cusub yahay mas-uuliyadda ku saaran ay mid weyn tahay waxaa imaan karaa caqabado qofka markaas soo wajaha maxaa is leedahay waddanka Ciraaq gaar ahaan magaalada Baqdaad imaanshayga waxaasaan kala kulmay waxaasoo shaqo ahaan naga hor yimaaday intaasoo kulmo ama shiraraan qabanay intaasoo mas-uuliyiin oo dowladda ah noo yimaaday maxaa howlo ah horta maxaa ka socda Baqdaad marka la maqlo in sartan ay ku taala ka sokoob maxaa shaqo qabataan shaqo horta meesha waqti badan way imaadeen dalka Ciraaq waxa u horeeyay wuxuu ahaa shirka holaha guud wasiirka kaalmooy holaha guud imaaday shirka ugu koowaad qofka koowaad delegation ugu koowaad isagoo ahaa wafdi kale labada jiro oo fashion aykan u imaadeen u yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya shirkii saddexaadna waxaa imaaday wuxuu ahaa wasiiradda arrimaha wasiiradda holaha guud nadiifo iyadana shir official u imaatay oo mashruuc dalka laga hadlaa labada dhan kadib waxaa imaaday furitaanka safaaradda wasiirka arrimaha dibadda maanta uu joogo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaar shir official maanta marka holahaas dhan way socotay howlo badan insha Allah waan rajaynaynaa inay socoto wasiiro badanna way jiraan heshiis iyo howlo badan ka socoto inay mardhow soo gaaraan dalka Baqdaad marwa Khadiijo markaad fiiriso hadda wadamada Carabta ama dowladaha Islaamka waxaad moodaa in xoogaa ay jiraan mugdiyo siyaasadeed oo dowladaha dhexdooda ah oo ama shiica ama sunna ay fikrado aaminsan yihiin annaga dad islaam aan nahay Soomaali ah sunnana waa nahay waddanka aad joogtana waad ogtahay maxaa isleedahay horta xiriirka labada dowladood dalkan horta shiica ma jooga xamdi kaliya sunna way joogtaa shiica way joogaa Kurdistaan aad joogto Turkmaan aad joogo isku qasiin dalkan gaalna ku nool yihiin Soomaaliya Ciraaqna weligood Ciraaqiinta Soomaaliya dhinaca diin ahaan mala tacaamul gelin jirin shu'uuntaasna nagad jirin ma laga yaabo Soomaaliya iyo Ciraaq xiriir sida uu sheegay xiriir dheer baa jiray wayna socda xiriirka dareen yarna mana arkin dhinacaas fiirnaya ama eedanina dhinaca shiicnimo ama sunni Soomaaliya ugu madhabkooda sunni yihiin arrimahaasna inay affect dhinaca Soomaaliya ama xiriirkooda ma arrintaas u yahay ummadina waxaa tahay qof dumar ah safiirka sokoob dumarkuna marka Soomaaliya la joogo dhibaatooyinka ugu badan dadka Soomaaliyeed la kulmaan waa carruurta dhallaanka iyo hooyada safaaraduna waa safaarad shaqeynaysa waddan macnalana way ku taalaa inkastoo ay hadda shaqadii bilow kuu tahay maxaad is leedahay mustaqbalka waxaasaan rabaa hamigeyga ah oo riyadaasaan leeyahay hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed inaan waxaas u qabto ku caawiyo waxyaalo badan waa jirtaa xamdi oo jeclaa dumarka Soomaalida oo qabto waxaan iga fiican markii waxaas wala badan oo ku jira insha Allah maruna howlgal doonaa markaas insha Allah faahfaahinkaas siin doonaa insha Allah intaad joogto magaaladan aad hadda safiirada ka tahay waxay leeyihiin dowlad dhisan waa maamulaa ka socda maxaa iyaga laftirkooda adiga idin dhex maro maamul ood leedahay waxaasaad safaaradeedii u gudbiyey oo adoo ka turjumaya waddankaaga iyo calankii dalka Soomaaliya yaa kala kulanta mas-uuliyiin ah Ciraaq dalka Ciraaq mas-uuliyiinta dhan waas aragnay wala kulmay sida kugu sheegay Soomaaliya aad danaynayaan wax badanna way rabaan inay la qabtaan duruufta xaaladda imaata imanayaan waxyar wayaan ka dhigayso dalka Ciraaq insha Allah waan rajaynaynaa howle laga filnaayo Ciraaq howle kasii weyn insha Allah ka ugu dambeyn marwa Khadiija waxaa tahay safiirkii dalka Soomaaliya ee magaalada Baqdaad u jooga dalka Ciraaq u jooga dalka Soomaaliya siyaasadda Soomaaliyana dee qof kasta wuu ka dharagsan yahay maanta waxaa laga yaabaa qofka marka uu mansab siyaasadeed oo macno leh soo galo iyadoo aqoonti ay jirto haddana in marka hore qaanado dadku hebel ama xisbi hebel ama damjidid hal ama sheekh hal dhaho waxaad ii sheegtay Sheekh Shariif xilligiis waa ku jirtay hadda xisbigan waad ku jirtaa oo dowladdan dhinacyo horta lagu tirin karaa marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku arkaan kaabaheedana dowladda kama marna awood ku leeyahay ama dhinacaas ka soo gashay
qof meesha lagu haya ay tahay waxaan jeclaan lahaa khadiijo dhinacay ku jirtaa horta hadii lagu ogaado khadiijo waa gabar soomaaliyeed soomaaliya matala soomaaliya u shaqeeya waan u shaqeyn doonaa meelaa raacsanaana ma jirto aada umahadsantahay inta ayaanu guud ahaan kusoo gabagabaynaynaa waraysiga toddobaadka oo nidkaga soo gudbinayna magaalada baqdaad ee dalka ciraaq sidaad arkayseen waxaa barnaamijka waraysiga toddobaadka marti inoogu ahayd marwo khadiija maxamed almaqsuumi safiirada dalka ciraaq u fadhida dalka soomaaliya intaanu dib hawada ugu kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo marwo khadiija waxaan ku leeyahay laa shukra cala alwaajib shaqadaada qabsatay waa ku mahadsantahay waqtigaa qaaligeedna siisay iyo sida aad noogu soo dhaweysay magaaladaada labaad ee ciraaq aada umahadsantahay